meeshana waxa laga aqbalay Emory school badan laga aqbalay and school yoon ku dhan waxay siiyeen full scholarship also waxa helay scholarship Bill Gates scholarship kiisa iyo waxa helay scholarship kala Jack and Cook labadaas waxay yihiin scholarship ugu sareysa Mareykanka marka kuwa faraha badan keed ka dooratay maxaad ku dooratay waxa doortay Stanford waxa ku doortay والد عيسن بركيسن إلهي عيني وكوا قربها تاجن walaalkeen iyo maamada ubadkoodana u duceeyay wataa dhaxda ku jirto gabadhan jaamacadaha Ivy League loogu yaqaan jaamacadaha waaweynka adduunka bilyaneerada adduunka Shiinaaska Hindida reer dadkuwan Dubai qasriga ka dhistay caruurtooda iskuulada ay rabaan inay u dhigtaan gabadhan u imaaday oo yiri scholarship buuxo waa kaasa scholarship dadin aqoonin waa iskuulka inuu ka bixiyo lacagtii iyo wax alaali wixii la xiriiray inta arday tahay iskuulkaas dhigaysa gabadhan sideed jaamacada u timid sideed jaamacad xaq iska dhigbo Bill Gates scholarship iyo scholarship kale ayaa gabadhan u imaaday oo dhahay annagana waa ku heenaa scholarship intaasa ku heenaa xaalad markay saan oo kale oo tahay waa stress socdo waaye maxay gabadhan sideed jaamacad oo wanaagsan oo fiican Harvard ay kamid tahay Duke ay kamid tahay Stanford ay sheegays ay kamid tahay iyo Emory kuwaasa u yimid dhahay yala kamid xitaa dhahay haye anaga soo marka xaaladda noocaas meeshaas oo kale ay marayso horta ardaygaas waa arday barakeysan gabadhan waxa ciil iga hayaa CNN-ka iyo inaan laga sheegin maxaa yeelay gabadhan she made it iyo qoyskan they made it ereyga you made it hadda kor waa idin baray waxaa laga wadaa way ku ahaatay ama way ku gashay mardaana asaas dhaan anaga way ku gashay allaha gabadhan marka waxay rabaa inaad ka taabto horta jaamacadaha soo dalbaday Stanford ay ka dooratay dooq ayda iska leh waxay ku dooratay Stanford iyo waxyaabahaas ayda taqaano kulay way fiirisay gabar aqli badan way hoos u sii gashay waxay ogaatay in jaamacadaas fursadihii ay rabtay iyo waxyaabihii ay rabtay kulay ay ka dhigan doonto Harvard iyo kuwaasna waxay dhahday waa inoo mar kale marka kulay xiriir fiican ay sameysay maanta magaceeda jaamacadaha waaweyn ku yaala Bill Gates ku soo haray Bill Gates scholarship gabadhan wuxuu ku soo xushay horta waa soo ogaatay Bill Gates scholarship waa kan marka fiirisid dhirinta ama qaabkay u rabaan ardayga inay ku soo xushaan horta waxay fiiriyaan ardaygan ma ka mid yahay shanta qof ee ugu sareysa dugsiga sare gabadhan Soomaalida ah shanta ugu sareysay ama A- ka keenay iskoolkeeda ay ku jirtay dugsiga sare xitaa wali jaamacad ma gelin gabadha hadda ay hadlayso jaamacad hadda ay u socotaabo marka Bill Gates horta ku soo xushay waa shanta qof ee ugu sareysa jaamacadaas ayda kaliyana ka ahayd waxa ka dugsiga sare ayda kaliyana ka ahayd Soomaali xijaaban muslim ah gabar yar ah gabadhan da'deeda idin sheega qiyaas leh waay ma aqaanani ma arkin baasaboorkeeda waxba ma arkin gabadhan waa 17 jir ama 18 jir ama 19 jir ma ka weyno walkiin daawanayo waa laga yaabaa ku xumaay hadda arinta hoos u galgalay laakiin waxaan rabaa Soomaalida inaan u sheego dalkan dugsiga sare Mareykanka waxa da'daas lagu dhameeyaa qaar 16 ku dhameeyo way jiraan laakiin inta badan waa 17 18 19 by the year 20 ay gashid maxaa la dhihi jiray da'da 20aad marka ku bilaabato jaamacadda waa fadhisaaba gabadhan marka 24 markay jirto waa ka farxalatay waxaa la siiyey scholarship jaamacadda way ka farxalatay Bill Gates kulay waa taqaanaa waa billionaire gabadhan jaamacadaha soo dalbaday waxaa ka sii darnaan doono kambaniyada soo dalban doono markay jaamacadda dhameyso Google Amazon Microsoft Apple iyo kumanaanka kale ee hay'ado waaweyn adduunka ka jiro ayaa gabadhan dhihi doon hay sanadka $500,000 oo shaqeey koo kala dhihi doona $600 ka war mid laga yaabaa inuu dhaho $1 milyan ka war waxaas ka kaftan laakiin waxa laga yaabaa gabadhan $500,000 in sanadka ay ku shaqeyso cidaas marka qoyskaas ha loo soo duceeyo hana la dhaho maasha Allah la dhaho waxaan rabaa muuqaalkan hala la share gareeyo ku la magac baxay ha soo gelin Mareykanka gabadhan maanta haday Soomaali joogi lahayd qoyskan uusan soo qixi lahayn gabadhan ayadoo yar Mareykan alkeen lahayn sacdan waa laga yaabaa simad jaamacadda Muqdisho goolis adikuwaas macnaha oo waalidkan oo silac iyo rafaad iyo saxriir jaamacadda gabadh uga bixiyay kadibna maxaa dhici karo waxa igu xiran anoo Soomaali ka boy ah gabdho fara badan oo Soomaali jooga maanta jaamacadii dhameeyay walaa wax dalka laga qabtana aysan jirin fursadda loo soo cararayo Mareykan loo imaanayo imaada idin leenayo wataas dalkan jaamacada ka dhameeyay waa iska fadhina baagamundo ahaana ma jirto digriigaas ku shaqeynaa abo waliba Ivy League markay tahay gabadhan oo kale sida idin sheegay way $500,000 a year Soomaaliya soo bax fursaddan ka faa'iideysta
gaashaanbuurta ha soo gelin yaa la dhegaysanin gabdhahane rajada waa taasaa u jeedaan rajada waa taas gabadhaas aad dariiqa furtay